شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maasada waxaa la yiraahdaa hooyo gacalo. waxaan wada ognahay qof walba oo adduunkan ku nool in hooyo dhashay. sidoo kale waxaan ognahay inaanu jirin qof dhib yaraan la dhalay. dhammaanteen ay hooyo xanuun iyo rafaad la soo martay. shakhsiyan anigu miyay baan ku dhashay. hooyadiina ma helin daryeelka iyo adeegyada ay dhakhaatiirtu bixiyaan. marka laga yimaado dhibtii iyo fooshii ay la soo martay dhakhtar la'aan, waxa jirta in aan hooyo abaalkeeda cidina gudi karin. waxa jirta in hal mar oo iyadoo ku xambaarsan aad yara siibato meesha xanuunta iyo sida ay u naxdo ayna weligeed gudi karin. shakhsiyan markii aan weynaaday ayaan hooyo waraystay walyaraantaydii iyo waxyaabihii ay la soo martay iyo waayadii inay dib igu noqoto. runtii waxay iga sheekaysay qiso aniguba aan wax ka xasuusto oo aad iga ilmaysiisay markii ay iga sheekeynaysay. sida dhacda dadka reer miyiga ah marka ay guurayaan oo kale, hooyadu waa qofka kaliya ee habeenkii markuu labo kala baran yahay kacda isla markaana diyaarisa guriga iyo reerku guuritaankiisa berrito inuu dhamaystirnaado. waxay kala diyaarisaa caruurta iyo rag wixii jooga cuntadii ay berri ku kala helaayeen marka la guurayo. waxay kala samaysaa xoolaha ayay wixii la lisaayo iyo wixii la soo dhigayaba iyadu ka shaqaysaa. waa markaan ciidan kala haysanin. xaqiiqatan hooyadii ana ugu weynaa waxay dhasho may jirin wax kale oo dumar ah oo caawinayay oo hawsha garab ku siinayay. guri furfur iyo diyaarin quraac sameyn xoolihii oo ay soo dhigaysay oo lisaysay. waxa u dheeraa inay xaamilo ahayd oo aad u cuslayd. anigu aad baan u yaraa markaa 5 jir 4 jir baan ahaa. aniga iyo ilmahaygu xigaba waana la qaadayay marka la guuro. iyaduna waxay xaamil ahayd ilmihii saddexaad ee markaa nagu saddex ahaa. iyadoo xaamilaa ayay hawsha intaa la qabanaysay, xilligaa kacaysay, mas'uuliyadda intaa laga saarnayd, cid caawinaysa oo aan jirin. haddana waxaa u dheerayd lug inay lugayso maalin gelinkeed socoto oo gaari mu qaadaynin. waxaa kaloo sugaysay markii la digo inay meeshii carruurta jiifsan lahayd caawa ee guri ah iyadoo ay dhisaysay oo ay shaqadeeda ahayd. iyadoo sidaa tahay oo hawsha intaa leegi ku dhacday ayaan galabtii lumay anigu aan baday. wiil riyo caana looga diray oo lagu riyo caana ka soo lista ayaan daba galay. dabeedna wuu iga dheereeyo maan tallaabadiisa dee maan qaadi karaynin, waan lumay. hooyadii maalintaa wixii daal hayay, wixii xanuun hayay, wixii culays iyo xaamilo ay dareemaysay waxaa u dheeraatay naxdintii. anigu markaan lumay xilli fiid ah bay ahayd oo qorraxdu sii gaabanaysay. siday ii raadinaysay ayaa labada cagoodna madaxeen. markay iga sheekaysay ilaa haddadan runtii waan ilmeeyaa. waxa kaliya ee aan u qaban karo iminka ayaa ah inaan baarir u noqdo, sidoo kale inaan u duceeyo inta ay nooshahay iyo marka ay dhimataba. maansadan baan markaa ku cabirayaa dareenkaygii waqtiga 2000 years later. inkastoo gabyaannimo hore loogu gogol dhigay geesiyaalku caanbaxay geyigeena joogaan, marna aanan gaadhayn gaariya halkuu dhigay. aniguna gugaygaan garashada ku ladhayaa galladana alla iska leh. waxaa gubay naftaydee iga keenay geeraar gocashada xanuun kale dhibtii hooyo gaadhaa goortii aan xasuustaba gam'i waaye jiifkoo igu wacan galgaladkee. adiguna garwaaqsoo gacalow ogsoonow guddigeed adduunyada iyo googo lacageed haddii laysu soo guro waxa aan la goyn karin hooyo gacalo weeyaan. ninkastoo garaad badan ama guunyo soo dhaqay inuu gaadho libintoo gurto ducada mooye abaalkeed ma gudi karo, mana gaadhi karo abid galab qura wixii helay.
aniguna garaadkay waxaan gaar u leeyahay hooyo gacaladaydaay midii layga gooyaay geedkii layga beeraay gumaarkiyo calooshiyo midaan gooyay beerkaay gabagabada fooshii midii gama adiidaay galiilyada xanuun kale midii gaaf wareegtaay wax kastoo ku gaadhaba adigoon dhibtii gocan midii ii gargaartee ii godashay naaskaay midii aan gosheediyo guudkeeda fuulaay hooyo gacaladaydaay dadka guud ahaantii adaa iiga gaaro noloshayda gebigeed iyo guusha aan helo adigaa guddoonsho ah adigaa garaadkiyo gabay curashadiisiyo inaan goobtan joogaba guulaheenna dabadii adigaa gardaadsho ah waxweeyaan ku goodiyin maansada gundheerayn gabagabadii waxay tidhi hooyo guul ku noolow weligaa ha gelin ciil guunyana ilaahay gees kastaba ha kaa dhigo farxadaan gaboobayn guulahay ha kugu sado markii aad gadoontee geeridu timaadana sakaraadku kuma gubo hooyo garo su'aalaha gurigaagu noqoy abid janno aad ku gamaadiyo goob raaxa loo wacan aan ku soo gunaanado inta goobtan joogta iyo dhammaan gacalayaalow idinkuna guddoomo aamiinta